guushaada waxaa saldhig u ah inaad nolosha ku guulaysatay inaadan ku guulaysanin waxa la yidhaahda discipline inaad naftaada ka adagta qofka bilowaadanka hadduu naftiisa ka adag yahay waxaa u suurtagelaysa inuu wax badan nolosha ka qabto in badan dadka waxa ay ku rely gareeyaan ama ay ku tashtaan in dhiirigelinta iyo motivationku uu gaarsiin doono nolosha guusheeda waxaa la yidhaahdaa dhiirigelinta ama motivationku wuxuu kugu caawiyaa inaad stepka qaaddo ama tilaabada qaaddo laakiin waxaa dhammaystir ka sameeya inaad leedahay discipline ama naftaada ka adag tahay haddaba ha ku rely garaynin nolosha inaad maalin walba raadiso dhiirigelin laakiin waxaad isweydiisaa naftaada ma ka adagtahay adkaanshaha naftaadu waxa ay maamulaysaa maalinka wanaagu jirana inaad wanaagga samayso maalinka ay kugu adag tahayna inaad samayso maxaa yeelay successka iyo guushu waa dhibco lagaa rabo inaad mar walba ku dhibciso ama tilaabooyin lagaa rabo inaad u dhaqaaqdo dhanka lagaa rabo inaad u dhaqaaqdo wuxuu disciplineka kale uu sameeyaa in uu shape gareeyo ama uu noloshaada saxo sida aad u rabto inaad wax u qabato ama dulqaadku uu kaa dhigo sida Soomaalidu ay dhahdo dantaada maqaar ee baa loogu saxdaa inaad ugu seexato dulqaadkaaga hawshaas oo u dulqaato haddaba ogsoono successka ama guusha nolosha waxaa saldhig u ah qofku inuu leeyahay dulqaad ama dhabar adeeg uu leeyahay ama uu haysto self discipline waxa la yiraahdo oo ah inaad adigu naftaada ka adag tahay oo aad control karto